diyaaraan intii wadankan naftaan dhiigan maalkan hor maay meel rey madkar xasan maxamuud laba xidigle taleeha kaad shirigi artuurka gobolka baay yahay hadii ilaahay aragay kama hadeernay furunta hore oo koonfur galbeed saraakiisha madaxdiyo walba insha dhimanaan baydhabo oo walaayo wadan dawladnimo ahayna dhibaato shacabka inta la dhibaatayay in surun maalin walba koonfur galbeed meel ka difaac jiray wal isla ogsanyahay kulan waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo oo ay ku biireen ciidamo badan oo ka soo goostay magaalada Baydhabo kana tirsanaa ciidanka asluubta ee koonfur galbeed Soomaaliya. ciidamadaasi ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Baydhabo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. maxay ahaayeen ciidamadani maxay yihiin sababtay u soo goosteen maxay tahay ay ugu biirayaan dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen barnaamijkeena ayaa ku dul istaagi doona. waxaan idinku haynaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo oo soo kala dhex galay kala shaki iyo waliba kala carar kadib markii laga shakiyay saraakiil badan oo ku lug lahaa inay u goostaan dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen haddana xabsiyada la dhigay. waa maxay tuhunkan ka dhex dhashay askarta iyo waliba ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba koonfur galbeed oo maarin la joojinta ciidamada maalin walba u galaya ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. haddaba sidee arintani loo xalin karaa maxayse tahay sababta keenaysa in laga yaaco dhinaca aadan madoobe iyo waliba xasan sheekh maxamuud oo loo yaaco dhinaca lafta gareen. waa maxay sababaha iyo asbaabaha jira ee ilaa ay hadda dadka ay fahmi laayihiin. barnaamijka ayaan idinku haynaa oo aad kaga daawan doontaan barnaamijka xulashada wararka. haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like gare oo share gare. ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee jooga duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku biiray ciidan aad u tiro badan oo ka soo goostay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaana duleedka magaalada ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. ciidamadani ayaa waxa ay ka tirsanaayeen ciidanka asluubta khaasatan dugsiga tababarka ciidamada asluubta. waxaa hogaaminayay nin lagu magacaabo Madkerow Xasan Maxamuud oo ah taliyaha dugsiga tababarka ciidamada asluubta ee koonfur galbeed Soomaaliya. waana ciidan aad u tiro badan. halkaasi ayay markii ugu horeysay ka hadleen waxayna sheegeen sababta keentay in ay ugu soo biiraan ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. waxay sheegeen in koonfur galbeed haba yaraatee wax nidaam dawladeed ah oo ka jira uusan jirin meeshana ay koox yar ay qabsatay dadkii iyo kooxdiina ay isku dhiban yihiin dhibaato weynna ay isku qabaan. waxa kale oo uu sheegeen in ciidamadii hadda saraakiishii iyo ciidankii iyo waliba qof kasta oo reer koonfur galbeed hadda laga shakisan yahay oo dawladdu ay xarig iyo xabsi ay la daba taagan tahay. waxay sheegeen in sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya in maanta Baydhabo lagu xiray saraakiil kalena saacadaha soo socda la qorsheeyay in xabsiyada loo taxaabo taasi oo xaaladda sii murjin karta siina xumeyn karta. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ee u soo galay ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa halkaasi marka hore ka hadlay bal hadaladoodii aan idin sii daayo. diyaaraan intii wadankan naftaan dhiigan maalkan hor maay meel rey madkar xasan maxamuud laba xidigle taleeha kaad shirigi artuurka gobolka baay yahay hadii ilaahay aragay kama hadeernay furunta hore oo koonfur galbeed saraakiisha madaxdiyo walba insha dhimanaan Baydhabo oo walaayo wadan dawladnimo ahayna dhibaato shacabka inta la dhibaatayay in surun maalin walba koonfur galbeed meel ka difaac jiray wal isla ogsanyahay ma indhikadan inta shacabka la barakay waliba may bartilmaameedayana meelo kaalmo shidaalka meelo shidaalka keesanyin lankii ka hadaloon isuuna wal hire ama sanhayna wal qaaday meel wadan sheegayna la kiire dhibaatadaas ma di aragnay ya walaasay ma socdaan arni anta in socdaan hatan in socdaan in sheegan hadii ilaahay ka raala naqad wala meel ka jara dawladnimo ma ah koonfur galbeed wal isla leey lan shakhsi ama la hadii ilaahay ka raala naqad iyo amni ata loo horeey ya aragdoon insha Allah guula rajeeyana sifaylaha hanin dhawaay anta kala gadaal noo jartana may laha meel walba ma siin ku jar isin ba aragahay tan lanki geekno dambeenu isin bardam inta la ku sugan hadii ilaahay adiba aragdoon wala una aragni dadkina horeeyeen ma sinjin ha ku jiidani
walaalo helni qaraabo helni dawladnimo helni hoga dawladna siin jarta dawlad inta jarta meesin ka baaqana intii siin qoytan wala un ha aragni isina hatta ma aragna bada kale arag doonta baagna hatta baaga siin jeedihan intii noo dambayta sinibad wadankin intii horeysatan ka qeyb gaada diyaaraan in intii wadankan naftaan dhiigan maalkan un hor iyaalkii ka madasho meh lama min dhatiyo ya dhufeysda ku goday walaalayaal ma ernay mana anfaas madii un erni abdibilin hani weerari magaalay meel eray Hussein Madker Turkiya li ingorode gudoomiyaha laanta lihat haafadu waa beri ma in kastan kama hanagaane ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed daraawiishta mas'uuliyiintii unka sartarayta iyo aragday afayeenka ugaaska iyo wasiirka iyo ankuwiini madaxweynaha sida dulqaadka leeyo horta muujin kama hanagay markan horeyta marka lamaad أنا أشعب قدومي لامد يا ما يكون هذا اللي يدبكي يالك كا مدشو ما لما من لتيو يد فيس كوكوده ولا ريال وما يرني ما نأنفعس ما تيون أرني عبد بلين هني ورري مركا أرك ده هسكو كتابني قبل أو أرك ده موريان روغدو بيدو قبل أو دولت روغدو إسكودافة قبل أو دولت نهكدو ما dadka oo una aragdeed hataa ku tabni ma inka baagane ama eedan nagadan ama bulsho kale nagadan inay gobolkiisoo dib u horeen fadaw ama aragdeed maamulkiisoo dib u horeen fadaw ma inay aragdeed dawlad injarna yamay meelunka edaayane eedanka adaayane inay dawlad inka jarna wal maamul wala rawn injarna una maamul badan hala shaqeeyni haafadeeda isku hayni maamul bulshada isku maamulaani hadii bulshadii dantiya ku hadal ma ku hadal korto kale may goobado la taawiya marka aragdeeda lankii hadalo wal hireetig wal hamara langaade wal hiree lankii afjay ka hadala meeluna koyni koy aradi dib horeen afadaas beledkii dib horeen afade hoob ilaahay ka raalana shalay ana walaalayaal wada dahay laakiin geek walaalayaal ma raw way buaha beledkii sidii ana ku horeeyay faday aragdeeda ya ka tarajar ma hina walaalow dad melihi shalay walaalo wallahi inuu walaalow lani abdubillah hani weerari marka aragdeeda hoob ilaahay ka raalana may anka baagane dadku noo dambeeyaan inay wad beledkiiyo dib u horeen fadaw la haysado mooriyaan haysata wal dawlad la rawn ka jarna wal maamul la rawn ka jarna in dib u horeen fadaw dalka digli marflab intii dib u horeen fadaw alxamdulillahi rabbil alamin ma had nagaana ilaahay subhanahu wa ta'ala ma had koodu isku le geeka way inta ka dhawaayahayna ciidamadii asluubta qaar oo wadadan iyo qalabsho xukuumaw taliyaagi habsiga dhaxe matali madkeer hogaamiyaw yageek hana deeri wayna qoytana ha ka dhawaada ciidamadii tin oo daraawiishta koonfur galbeed dib u raanta haayeen ha ka dhawaada ini isin la suntownay si isin la siin dhawaay ama la siin jeeli yaka dareema kortan wadanka sidii isin ogdin adow ha ku duuli oo afbilaar iyo salbilaar horeyna in sheegni hatana sheegan ya ha ku duuli ya rooga wili hore leeyin sidii oo tawyin wal hatu weelahan wala yo tawyin ka wiin maanan dareera doonaan haddii ilaahay karaala nagada midda kale may jaray gudoomiye xaafadeed oo usuuna gurishay hortis laha ka dhibaatay oo usuuna hana deeri adin ha dhawaaw ciidamadii horeyti oo hana deerta ma ciidamadan si gaar ah ma husahayna inuu habandhi ka hayna ciidamad oo federaalka tirsanay habsigi laha galay laha weerari haayeen si goonaha laha beegsay intii singatin intii hasiin dareerta maylana iyada siin xambalayaan humaashadii siin kooytan oo dadkii kooytan inay siin ka qayb qaadatan dagaalada iyo dib u xoreenka dalka siin ka qayb qaadatan siin ka dhawaayaan ha ka dhawaada meel siin ka jeeli oo siin ka townay ya kooytan wala siin ku maray malan siin ku lemala geek la ka bilaawo isiin taladii dhinoo ku weedaasan ha dhawaada bulshada kale iyo dadka maqon kale oo neetay lamid ah dadku walaalaheen away baaqane sida walaaladiyo oo hataba kooy oo arageen in dhibaataan aragdeeda meelo ka jartay oo noolada korneen furunta kooy koran taasan baaqan oo makiyar beledka leysaanin baaqan horroognon baaqan marka hadii ilaahay karaal nagada isiigna maysan lana anta siin ku sugan وهاجاك داود يا لين تاسيان كوسو gabagabeynina barnaamijkeena xulashada wararka oo inta badan kala socoteen waa TV fadlan daawada hadaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like gareeyo share gareeyo bye bye